waftigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea oo saddexdii maalmood ee u dambeeyay booqasho ku joogay dalka ayaa saaka ka ambabaxay gagada diyaaraduhu ka hadaan kana soo degaan ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa kadib markii ay dhameysteen booqashadii ay ku yimaadeen Somaliland. ujeedada ay waftigani u yimaadeen wadanka ayaa waxay ahayd sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladda guud ee dhabta ee ka jirta Somaliland sida uu warfideenada u sheegay maalintii ay dalka yimaadeen wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Eritrea oo waftigaasi hogaaminayay mudane Cismaan Saalax Maxamed. intii ay joogeen waftigani waxa ay kulamo kala duwan ay la yeesheen madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, shirgudoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada iyo xildhibaano kamida baarlamaanka. waxaa kaloo booqasho ku tageen jaamacadda Hargeysa iyo suuqyada ganacsiga ee caasimadda Hargeysa, waxaana warbixin ay kaga dhageysteen mas'uuliyiintii ay la kulmeen iyagoo uga waramay taariikhda guunka ee dalkani leeyahay iyo marxaladihii kala duwan ee uu soo maray gaar ahaan waqtiyadii ugu adkaa ee halganka. waxaa gagada diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa ku sii sagootiyay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah madaxda xukuumadda, gaar ahaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon. waftiga ka socday dalka Eritrea ee uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi mudane Cismaan Saalax Maxamed ayaa waxa ku helinayay la taliyaha madaxweynaha ee wadanka Eritrea Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka Somaliland, garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa.